الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وذو السلامة اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد إله بما هذا إسكاله إله نوافجيه إن شاء الله تعالى إنه نقدر ومدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولا لي التوفيق ده الله نوافجيه وحن ربي إن شاء الله تعالى إن كهذا الله إله إذن كي إن رشة القرية تضبع الرماد أو ننكر رجعه oo aan isagoon u malaynayn arrintu inay saa tahay laga yaabaa sabab inay u noqoto inuu gurigiisa burburiyo inuu gurigiisii uu burburiyo guurkana waxa weeye waa wax la dhisayo guur iyo guri iyo maxaan ku raadayay ninka ayaa guursada daa'iman gabadha waa la guursadaa leeyahay maadaama ninku guursado waxa weeye ninka ayaa maxaan ku raadayay mas'uuliyadda guriga dhisidiisa iyo guriga in la dumiyo isaga sabab u noqon kara ilaahay jalla wa ala wuxuu ka dhigay ninka ragga qawaamkii weeye isagii baa mas'uuliyadda qaadaya reerka qaadaya maxaan ku leedahay arrimahaas maanta insha Allah ta'ala todobada arrimood waxa ka mid ah guriga maxaan ku leeyahay isagoo aan dareemaynin oo laga yaabaa inuu gurigiisa burburiyo waxa ka mid ah qodobka ugu horeeya عدم شعور الرجل بإحساس المرأة not caring about the feeling of his wife وقضبك أغهري maxay tahay waxa weeye ninka ragga oo aanan qofta dumarka ah ilaahay jalla wa ala uu abuuray ee uu ballan qaaday mas'uuliyadeedii dareenkeeda una fiirinayn laga waayay in uu mar walba uu fiiriyo dareenkeeda maxaa sabab u noqonaysa walaalkay khayr Allah ku siiyo ilaahay jalla wa ala sida qofta dumarka uu abuuray waxa way gabigeeda waa dareen ilaahay jalla wa ala dareenna waa galiyay waxa ka soo baxayna waa dareen waxay dareemaysana wixii xawlaha kullama xawlaha tahus fi ويأتي فيها الإحساس جميع وحي دناعية كان وحي ما أنت أركتي أردن وحي ما أنت أي لهذا الشيء قفك إلى هذا الشيء أنت أردن أي دنينك سوق بني ولا لو خير الله كسيو ما أديك مسؤولية القادم حيت هي أمانة إله كسي قفت ما أنت تقول سنة واتك الحمد لله إله أمرك سواء على صومالي وحال إلى جور وحال إلى دو والله ما قف وسكسو جورتي maxaa meesha keenay waxa weeye guurkaasi maadaama aad ugu tegay gurigooda aad ka soo doontay qoftaasi sideeda maalintii ay dhaltay ilaa ay ka weynaanaysay ilaa aad ka guursanaysay gabadh waxay ahayd la soo ilaalinayay laga warhayay la daryeelayay la jeclaa lagu kalsoonaa la ilaalinayay intii oo dhan gabadh waxa weeye la koolkoolinayay ayadii markaa maalintii aad adigu guursatay maalinta aan anagu guursanay ama anigu guursaday waxa weeye gabadhii waxaan ka soo qaaday reerkoodii anigoo ballan qaaday daryeelkeedii naxariisteedii ixtiraamkeedii maxaan ku idhahdaa koolkoolinteedii xidhiirkeedii intii oo dhan anoo ballan qaaday akhiyo marka aan guursanay kadib aan gurigii markaan keenay waxaan keenay qof nool oo dareemaysa wax walba oo ay aragto wax walba oo ka hor yimaada ilaah amarkiisa way timi qoftii waxay rabtaa intii aad soo ballan qaaday intii halkaa ku helaysay adigu ha u malaynin qoftii waan keenayo waxa weeye imika aniga ayay ii dareemaysaa waxa weeye waxaan anigu rabo ayay qabanaysaa ma guurku waa wax wada qabasho aniga iyada waxaan ilaahay jalla wa ala soo keenay isku dan baan nahay waxaan rabnaa inaan alxamdulillah inaan danteena ilaa ka dhimanayno inaan ilaano wadantaasa si uga shaqeynaa alaabta man hortaal mar walba la wada fariisto la yiraahdo alaabta lana hortaal sanayla marka lidalik waxa lagu leeyahay halkan waxa weeye dibta ugu weyn ee qofkaas maxaan ku raadayay helaysay wax walba oo aad keentay oo adigu aad u malayso kaliya inay lacag rabto lacagtu waxba keenayso waxa keenaya in aad hadalka aad la hadlaysid aan la fadhiisanaysid aad weydiinaysid bal xalkaagu soo yahay walaal maanta seeta how are you doing today كيف حالك اليوم aad la hadlaysid aad la xaajoonaysid aad wareysanaysid
intii ay kaa rabtayn aad siinaysid ee ahayd kalgaceylka, ay ahayd kalsoonida, ahayd daryeelka, ahayd maxaan ku ixtiraamka, ay ahayd xidhiidhka aad la leedahay. marka waxaa lagu leeyahay ninka ragga wuxuu gurigiisa ku burburinayaa, burburka waxa u keenaya isagoon dareemayn. wuu soo galay, alaabtiisii u dhigtay, gurigii waxay cuntadii ay dhigtay ayuu cunay, maxaan ku dhaha biyihii waa quwaystay, wuu soo galay, wuu seexday, mana arkin aragti la-aanta ee wejigeeda inuu eego maalintaas uu yidhaha xaalku maanta siduu yahay. hadduu arkay iyadoo faraxsanna inuu la farxo, hadduu arkay inay cadhaysan tahay inuu yidhaha walaal maxaa dhahay, sidee wuxuu jira. haddii arkay iyadoo murugoonaysan, marka waxaa la leeyahay waxyaalada sababta ka mid ah, waxyaalada sababta ka mid ah inuu rinka ragga ah uu gurigiisa ku burburin karo waxaa ka mid ah isagoona bes soo galaya, ka baxaya, aanan la hadlaynin, aanan waraysanaynin, aanan shucuurteeda khaaska ah, waxyaalada la xidhiidha ee nolosheeda la xidhiidha, ha noqoto maxaan ku dhahda murugo, ha noqoto farax, ha noqoto fikir, ha noqoto maxaan ku dhahda xanuun, ha noqoto culays, ha noqoto wixii la xidhiidho oo dhanba inuu la sheergarin waayo, odhan waayo walaalay. ilaahay jalla wacala si ugu abuuray dhegaysta khayr allahna si ilaahay jalla wacala, ilaahay subxaana wa tacaala qofta dumarka ilaah ku sheegay, wa min aayaati aayadihiisa waxaa ka mid a inuu ilaahay idinka abuuray feedhina kadaaligna litaskunuu ilayha, qoftii aad ku degi lahayd, eed ku xasiloonaan lahayd. marka walaalo meeshii adigu aad ku xasiloonaan lahayd haddaanad ka fikiraynin, odhanaynin walaalay sidee wax u jiraan, see lagu hayaa, dhibta xaggee ka timi, maxaa dhib keenay, ood odhan weyda anaa ku garab taagan, anaa kuu muciinaya, anaa wax kula qabanaya, anaa sideed rabtaa inaan wax u qabto, haddaan intaa odhanayn, waa waxyaalada walaalo khayr allah na siiye la yidhaahda ninka ragga ah gurigiisa uu ku burburin karaa. taasina waxay dhacdaa walaal. waa laga yaabaa inaad halka intaanad guursan ka hor inaad odhan jirtay, inaad waraysan jirtay, inaad wax walba odhan jirtay, had iska dhaaf, waxay tegay waxaa soo gelis bahayd lagu soo gelinayay xeradii baan ku jirnaa, imanka shaqadii baa noo taal. walaalayaal khayr allahna siiye, shaqadanna laga rabo waa shaqo waxa weeye shaqo joogto ah. maalintii aan guursanay ilaa maalinta aan ka dhimanayno, labadeenna mid uken ilaahay jalla wacala hortiisa ay tegayso, waxaana laga rabaa in ninka ragga ah bidaat, qofta dumarka aan soo noqon doona, iyada dumarkana waxa weeye waa ka badanta ilaa iyo waxa weeye aan 25 qodob oo aan marraba maya maha 25 astaqfirullah, waxa waa 12 arrimood oo qofta dumarkana iyada laga rabo sifooyinkaas. ninka ragga 7daas haddii uu la yimaado gurigiisa uu burburinaya. waxaa ugu horeysa oo ugu horeysa waxaa midda ugu horeysa qofkan inuu aaminsanaan waayo qoftan uu keenay inay leedahay dareenkaasina uu la qaybsan waayo. عدم شعور الرجل إحساس المرأة. Okay. Do not caring the feeling of your woman, of your wife. That's one of the things. ومد كمد أي محاكو الآية. ولذلك توفيق ده الله نوافجيه وحن أبهن هاي. ولا لو خير الله نسيت الضبضة قضب. إن سيدون جوري جاجو أم جوري جاجو أبربرين. إن أنت الضبضة قف أن هات الضبضة قضب إن آدي أدود ذلك. قضب كأوه رأي وحوي وانري. هدي إلهي هذا ولو بهاي هاي. وح الله وح إلهي كسين جرير كودا بديهد. إن أديجينا وأتبلن قاعدة ما أنت أتبلن قاعدة جوري جا كأنت كذب. إن أديجونا كسجن. إن وحقوق بتاه. أديجو حيالات أكون دقائق يصير أو أجوه الرأي. وحوي قفتا أنا ورثت قفتا أنا ترادي ولا لي محاجرة سيدي وحجران سيدي كوعاوية سيدي وحكو لقبتا دينعين وحكا قبتا دينعين لغا سوقالي دينعين لغا هيا دينعين محاكو داداي أن إياه محاكو داداي سوى وحجراني إيشي
oo aad marka aad maaha ii sheego keliya maaha marka ay kuu sheegtana inaad adigii dadaashid inaad wax la qabatid intii ilaahay ku karitaankiisa ku siiyo taas ayaa ugu horeysa insha allahu tacaala haddii ilaahay idhaahdo tawfiiqda allahna waafajiye waxaan u baahanay walaalayaalow guurku waa sahal gelistiisu ka bixistiinu soo sahal ku dhaqankiisa ayaa adag ku dhaqankiisana waxaa ka mid ah ku dhaqankiisa in ninka ragga ah ilaahay jalla wacala uu dhiibay mas-uuliyadda inuu qoftaas ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay jalla wacala iyaduna waafajiyey inuu ilaahay waafajiyey maalintii ay timina iyaduna ballan qaaday inay labadaasi isagaa u horeeya anigaa u horeeya waxaa laga yaabaa inay ragga qaarkood yidhahdaan may iyadu ha horeyso iyada hooyo ilmaheeday u tahay adiga kuma ah hooyo ayaday waxay u tahay ilmaheeda adiga hooyo kuma ah adiga waa zawjad wey waa xaas maadaama ay xaas tahayna ka wareynteeda koolkoolinteeda naxariisteeda daryeelkeeda wanaajinteeda ixtiraamkeeda xidhiidhinteeda intii oo dhan waxaa laga rabaa waa aniga iyo adiga ragga haddii aanu shaqadaa ku kici weynano shaqadaa ah in aanu shucuurteeda ama dareenadeeda aanan maalin walba markaan soo kacno ilaa aan ka jiifsanayno aanan ogeyn aanan wareysanaynin aanan ka warhaynin waxay noqonaysaa waa adkaanaysaa noloshaasoo adkaanaysa falidaalika waxaa lagu leey qofka bani aadankana uu dulqaadan markuu dulqaadkaas uu yanfud الصبر فحينئذ الأمور تقع في مرحلة waxay gaadhaysaa markii ay maarad isku soo oroto waxay gaadhaysaa inuu gurigaasi burburkana maxaa u keenay oo laga yaabaa markii qaarkood inay yidhahdeen ha iyadaa dhibta keentay walaalow run ma isku sheegnaa dembigeenna allaha dhaafe run waxaan soo sheegayna waxa weye run ayaanu kala qarsanin ninka ragga ah ayaa gurigiisana dhisan kara gurigiisana burburin kara qoftan way la dhisaysaa maadaama ay la dhisaysa ilaahay jalla wacala siduu ilaahay u sahalay inuu gurigaasi dhismihiisa hadduu wax ka garan waayo hal kalmo oo carabkiisaas taalla ayaa gurigiisaasi gabadhaasi ay guriga kaga baxaysaa so ilaahay u sahalay maxaa dhacday culayska weyn aniga iyo adiguna haystaa waxa weeye gabadhaasi marka ay soo gashay wax walba oo wanaaga way wadataa wax walba xumaanna way wadataa laakiin wanaageeda ayaa badan oo wanaageedaas haddaad ku abuurtidna wanaag baad ka heli haddaad xumaan ku abuurtidna xumaan baad ka heli weliba xumaan wanaagan haddaad ku abuurtid wanaag adiga intaad sheegtay ma intaad adigu siisay ma inka badan baad ka heli xumaanta haddaad isku taabatidna xumaan intaad adigu aad taabatay maaha in ka weyn baad ka heli marka walaal tawfiiqda allahna waafajiyo aan ku dadaalo in aanu dhibtaasi geysano dhibta aan guriga aan ku burburin karno waxaa ka mid ah in aanu shucuurteeda dareenkeeda daryeelkeeda in aanu ka shaqayn weyno xidhiirkeeda in aanu ka shaqayn weyno taa mar alla markii aan soo xidhno waxay noqonaysaa wixii oo dhan waa isbedelayaa sida ay dhulkuna haddii laga shaqayn waayo haddii la daryeeli waayo haddii loo naxariisan waayo haddii biyo lagu shubi waayo haddii maxaanku dhahday la nadiifin waayo maxaanku dhahday xumaanaya guriga baalkii dhulkuna sidaasoo kale weeye qofta dumarkaana waxay u baahan tahay marka insha allahu tacala inaan ka soo gaadhay 7 darsiye 6 darsiye kale walaalow haddii aanad like garayna siduu videogaasi ku soo gaadho mar walba like garay oo subscribe-ka u dana insha allahu tacala si uu ku soo gaadho mar walba barnaamijka qaybtayda hadhay allah nagu anfaco dhammaantiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.